waxaan idinka mahadnaqayaa mowqifkii midaysnaa ee ka soo saarteen arrintii ictiraafka iyo amniga guud ee qarankaba sidii dhaqanka waxay walba Somaliland xukuumadda ee markaa talada joogta iyo xisbiyada qaranku si joogta bay uga tashanayeen arrimaha qaranka waxaan iska kaashanaynaa oo hawlaha qaranka oo ka mid yahay amnigu sidaynu dadkeena ugu heli lahayn amnigana oo ilaashan lahayn dalkeena horumar u heli lahaa soo ictiraafka aynu helay loo sii xoojin lahaa oo dunida inteeda kalena aynu ictiraafi lahayd warunoo ictiraafka waxa laga yaabaa dee mar dunidu kuma wada ictiraafayso Somalilandna xaq bay u lahayd mar walba ictiraafka waayo dawlad madax bannaan bay noqotay 26 Juun 1960 maalinta aynu gobonimada qaadanay Muqdisho xor ma ahayn Soomaaliya ma jirin haddana mar waxay dhahan baarad country baan nahay horta ma inaga dhalay mise iyaga ila dhalay masle Somaliland baa dhashay Soomaaliya maanta waxaan u baahanahay ictiraafkii wuxuu dhaliyay oo Somaliland tusay dad badan inay waxba u geysan iyo dawlado badan inay waxba u geysan oo inay waxba ku sameeyeen inay ka hor yimaadeen rabitaanka shacbiga Somaliland aynu weliba qaarkood dee halkan xagsi ku leeyihiin wax dhibaato ah oo dhex marayna aanay jirin arrinta Somaliland ictiraafkeedu waxay Soomaaliya u muuqataa inay ku soo qaadayso duulaan marka dunida waxaan u sheegaynaa in Soomaaliya ay maanta duulaan ku soo qaadayso way u badheedhay inay amniga iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha Somaliland ay khalkhaliso shacbigana waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan inay qarankooda difaacaan guud ahaan dalalka aynu jaarka nahay midaanu anagu dee cadaawad u haynin ma jirin laakiin dee ciddii ka dhigata Somaliland cadow Somaliland waxay u arki doontaa inay cadow yihiin dalalka aan walaalaha nahay Carbeed midna anagu ma necbin taariikh guurina way naga dhaxaysaa hadday tahay Saudi Arabia hadday tahay Masar berigii Suez Canalka laga xiray halka ma looga dirayay ariga iyo geela sabab iga soo horjeesato Masar Somaliland ma jirto Saudi Arabia dadkii ugu horreeyay tagay Soomaalida reer Somaliland ma aha waanu inuu joogaa boqortooyada waxay ka dhisay reer Somaliland marka walaalaha ayaan u haysanaa weli waraqdan u qoray Netanyahu mid la mid ah baan u qoray boqorka Sacuudiga waan u qoray madaxweynaha Masar aan u qoray Erdogan midna ima soo jawaabin rabitaankii shacbigayga waxa ka soo jawaabay dawladda Israa'iil waana mahadnaqaynaa walaalaha Carbeedna jawaabtiba ka suugayna cadaawad kama naafilayni waxaanu ka filaynay jawaab walaalnimo iskaashi iyo inaanay ka hor iman rabitaanka shacbiga Somaliland way ogyihiin Somaliland Soomaaliya ka hor ay dal madax bannaan noqotay waxaanu jecel lahay xiriirkayga iskaashigu inuu sii jiro walaalnimada iyadu inay sii jirto sabab ay Somaliland maanta ugu hor yimaadaan ma jirto dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay Soomaalinimada in la isu keeno oo la mideeyo Hargeysa ka dhalato xamar kama dhalan dadka Soomaaliyeedna cadaawad ma hayno waxaan leenahay hawsheeda anaga maamulanayna qaran madax bannaan baanu noqonay 1960
koob iyo sagaashankii baan la soo noqonnay madax bannaanidayada ciidan duulimaadnahay kuma jirto laakiin waxaa is leeyahay Soomaaliya hadday ku soo duusho Somaliland sidii berigii hore ugu jabtay duulaankeedii si ka xun bay ugu jabi doontaa hadda la